السلام عليكم داودي الوعي السلامية ميل كاستا oo aad dunida ka joogtaan waa maalin kale oo qurux badan iyo muuqaal kale oo xiiso badan waxana Saciid Galeer halka iga daawataana waa Saciid Galeer fadlan hadii aad jaanka ku cusubtiin waa in soo dhaweynaya gacmo furan qalbi furan wax walba furan baan ku soo dhaweynaya wax walba furan jireere gacmo furan baan ku soo dhaweynaya qalbi furan aad baad u mahadsantihiin daawadayaal taageeradiina kala kiya labka waan ka mahad celinayaa boqolkiiba boqol aad baan kaga mahad celinayaa okay maalmahan idinkama soo hor muuqan oo muuqaalo ma aanan soo duubin maxaa dhacay waan ogahay inaad isweydiinaysaan hase yeeshee waxaa la yidhi adduunyo yaa nin waliba qumanihiisa ayaa qorta ugu jiraa la yidhi mashquulo iyo waxba ayaa iskala dhacay haweeney mashquula ayaa iskala dhacay okay miyaan ku waramay walide miyaan ku waramay wali qofba waayisa ilayl meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku waramay wali qofba waayisa ilayl meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaa ku waramay weli daawadayaal heestaasina waxay aheeday Axmed Kuluc gabadha la qaadaysa ma garanayo waan ka xumahay inaan magaceeda garanaynin islaanta la qaadaysa hase yeeshee eedaas waa heesaan jecelahay aad aan u jecelahay boqolkiiba boqol 10 jeer aan dhageysto maalin walba waqti aan 10 jeer ku dhageysto ma hayo laakiin aad baan dhageystaa haddii aan waqti haysto waan iska dhageystaa heesaas midaan jecelahay waliba waxaan rajaynayaa inaan channelka introduction-kiiska aan ka dhigi doono heesaas aan ka dhigi doono mar dhow oo aan sidaa u dheerayn okay daawadayaal horta waxaad iga barateen inaan ka hadlo tartamada heesaha ee Got Talentska waxyaabahaas yani inaan ka hadlo muuqaalo tiro badan ayaan kasoo diyaariyey idinkana aad daawateen aadna aad ugu riyaaqdeen hase yeeshee waxaa jira inaad sugayseen finalkii ama finaladii tartankii Muqdisho Got Talent waa dhamaaday hase yeeshee waad isweydiinaysaan sababta aan kaga soo hadli waayey ana xataa waan isweydiinayaa okay tartankaas uu dhamaaday I think waxaan u maleyn hadda ilaa asbuuc ayaa kasoo wareegtay dhamaanshihiisa hase yeeshee aniga maanan kasoo hadlin bilowgii adigu labada video baan kasoo qaataan u maleynaa isagoo dhanba intaa ka badan kamaan soo qaadan aadna maanan kaga hadlin laakiin tartanka aan waxyaabo fara badan aan kasoo qaato wuxuu ahaa kii heesaha iyo hibada jiilka cusubkaasi uu dhamaaday waxyaabo fara badan marar badanna aad yani janalka sababaha adigu soo biirtayna uu ka mid ahaa marar fara badanna yani aad ka daawateen janalka hase yeeshee maxaa dhacay daawadayaal maxaan kaga hadli waayey daawadayaal sababta aan kaga hadli waayey tartankaasi waxay ahayd ama muuqaaladiisa xitaa wax yaroo kamid aan soo qaadan waayey dabcan horta waan soo qaadan karaa waan ka hadli doonaa adiga laga yaabo inaan muuqaalo yaroo gooskoosa ka soo qaato hase yeeshee sidii hore aan kaga soo qaadan jiray uma soo qaadan doono sababo la xiriira sharciga YouTube-ka iyo copyright claim oo dhacay yani own risk ama dadka markii horeba soo saaray ay igu claim gareeyeen yani muuqaalka copyright ayuu leeyahay qofka marka ugu horeysa soo geliya ayaa copyright-ka iska leh mar waliba soo marka adiga haddii aad soo qaadato muuqaal yani qof kale uu soo diyaariya haddii aad soo qaadato isagiina uusan yani raalli kaaga ahayn halkaa dhib baa ka imaanaya marka sababo sharciga ah ayaan isaga daayay inaan ka hadlo tartankaasi dhamaadkiisii ama finaladiisii aan isaga daayay dawaanaan ka xumahay inay dhacdo maxaa yeelay marar fara badan waxay daawateen anigoo falanqaynaya oo aad kaga hadlaya waxyaabaha yani loo baahan yahay iyo kuwa lagu soo kordhay inay tahay dadka ku soo baxay aan aad kaga hadli jiray kuwa dhiirigelinta u baahan aad baan u dhiirigelin jiray kuwa kalena soo bixin doona amaba tartanka ka harana ayagana sidoo kale waxaan dhihi jiray haddii aysan talent lahayn guys ma diyaarsanidin soo diyaariya haddii kale idinma noqon karto tan hibo idinma noqon kartay iska daaya
hase yeeshee waa ka sababo dhinaca sharciga ayaa keenay inaan iska daayo oo aan kaga hadli waayo tartankaasi. Okay, dawadayaal haddii aan yani arrimaha tartankaas halkaas ku dhaafo, waxaa jira dad baa jira adduunku dadku isku mid maahan, midba meel ayuu joogaa. nin wuxuu joogaa meel sare ayuu joogaa, midna meel hoose ayuu joogaa. nin meel ka kore jooga waxaa dhacaysa marka qaarkood yani laba nin oo saaxiibo oo kala ah amaba isku meel jooga ee jaranjarta amaba sarta meesha uu koraysa ka taagan ayaa dhacaysa marka qaarkood. Okay, mid inuu noqdo mid wanaagsan oo aad qof naxariis badan uu noqdo, mar waliba hoostiisa uu fiiriyo. midna waxaa dhacaysa in uusan waxaasi dan uusan ka galaynin oo uu mar waliba يعني هوشيس ونسكوتو أصيغا يعني إلهي سون دايزول wax kale oo sameynay ma lahan, laakiin mar waliba waxa wanaagsan waan sheegaa in dadka ka hooseeya mar waliba aad fiiriso. hadduu qofkani caawimaad u baahan yahay aad caawiso, haddii yani talo haddii uu baahan yahay taladii aad ku caawiso, haddii uu tusaale ka rabo inaad tusaalihii ku caawiso. horena waxaa loo yidhi dee adduunkan horta waa laba ayaam waaye, ayaan aad yani adiga ay ku shidan tahay iyo ayaan ay ka dansan tahay, labadaas mid waaye. waxaana hore loo dhahay hore loo mari yani waxaa hore loo dhahay maaha, waayad quraan baa waxay leedahay wa tilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. dee ayaamuhu dadka ayay ku wareegayaan, qofba maalin ayay haystaa. waxaa la yidhi ninba maalintiisa dee ayaa madfaca loo tumaa, yaa ninba maalintiisa ayaa madfaca loo ridaa baa la yidhahdaa. soomaalidu way ka mahmaado waxay tiri ninba maalintiisa ayaa madfaca loo ridaa. ninba maalin ay baasha u saaran tahay, ninba maalin buu haystaa, ninba maalin buu yani baalal sii diyaaradihii oo kale ayuu cirka u duulaya. Etoobiyaankuna waxay yidhaahdaan dee mararka qaarkood waxaa dhacaysa markuu ninku meeshaasoo kala gaaro cirka ayuu jaranjar saartaa bay yidhaahdaan. cirka maaragtay ayaa jaranjar saaranaysaa markaad heer sare aad gaarto. waa iska sidaas yani qofku markuu heer sare joogo halkaa ayuu taagan yahay. heer waxaa dhacaysa yani waxay leeyihiin iyagu ay aaminsan yihiin ninkii ama lacag le ama ninkii meeshaa sare jooga cirka ayuu jaranjar saartaa, wax celinaya ma lahan. ma fahanteen? marka mar waliba laakiin waxaa wanaagsan maadaama uusan dadku isku mid noqon karin, isku heer marba uusan istaagi karin, waxaa wanaagsan inaad hoostaada aad fiiriso. fanaankii weynaa ee cabdinaasir macalin saciid waxa uu yidhi ama uu ku cabirayaa heerka noloshu ay leedahay hees. waatan ablayla dhegeystaa. دليل هاك سمار دوليو دينكو باو سمن على مرليت مقرب دقو موضع سنان كرو سبمال مرليت مقرب دقو موضع سنان كرو mar un leesmow garab digo dadma wada sinaan karo, adduun waa isdaba maal. adduunkan aad arkayso hahay haadka samada duuliyo diinkuba u siman calaf. haddii aa shimbir tahay yaa ama diyaaradda ka soo qaad, diyaaradda halkaa joogto iyo gaariga dhulka taagan ama mootada dhulka taagan dhammaantood shidaal bay wada isticmaalayaan. yaa shimbirta duulaysa hawada sare iyo diinka aan cagaha lahayn ee dhulka gurguuranaya, ilaahay dee waa u siman yihiin. ilaahayna wuu yani uma kala socona, ilaahay irsaaqadooda waxoodana wuu siiyaa. matahantin ilaahay waa u siman yihiin. calafka marka la fiiriyana waxaa la yidhahdaa waa la kala horeeyaa mooye lama kala calaf badna. yaa waa la kala horeeyaa mooye lama kala caga badna baa la yidhahdaa. ninka ragga ay lagama caga badna, keliya waxaa la isdheeryahay dadaal. calafku waa jii ilaahay,
wax waliba waa lagu qoray waa sax laakiin waxaad u baahan tahay inaad lacagahaaga ku doonato cagahaaga inaad ku doonato oo aad raadsato ayaad u baahan tahay dawadayaal waxaan u maleynaa maanta inaad ila yaaban tihiin sababta ah intaan halkan u istaagay aan waxyaabahan tirada badan aan kaga hadlayo waad ila yaaban tihiin damahaantii laakiin sheekada meesha taala ayaa waxay tahay waxyaaba fara badan ayaan arkay oo tiro badan ayaan arkay oo yacni aan la soo koobi karin ayaan arkay insha allahu waan idinkaga sheekayn doonaa haddii aan la yidhaahdo hortiina intaan soo istaago ma fadhiyo maanta waan taaganahay hortiina intaan soo istaago ayaan ka hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo muuqaalo sidaan oo kale ah oo yacni ama aan wax isugu sheegayno ama tala ahaan aan isku siinayno amaba yacni aan wax ku kala faa'iidayno haddii aan la yidhaahdo waxaaba tiro badan ayaan soo qaadan doonaa ama dad ha ahaadaano ama cashira ha ahaadaan ama dee qiimeyn kale oo aan samayn doono ha ahaadaane waxyaabo tiro badan ayaan ka hadli doonaa insha allah intaa halkaan soo istaago daawadayaal waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalka maalmaha idinma soo hor istaagin maanta waan ku faraxsanahay inaan hortiina soo istaago si kalena maanta waan wada faraxsanahay aad baan u faraxsanahay dhabaantii markaan xaqiiqa ka hadlo waan faraxsanahay maxaa yeelay mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad dadaal muujiso dadaalkaasi miro ayuu dhalaa miruhu dhalo ayaad guranaysaa markaa guratana farxad baad la boodboodaysaa dhabaantii siday diintu nagu tidhi yaxanaa dhaafti adkaa darajadu helay nafiiskaamadaayne dadaal gaadhi doonti marka daawadayaal aad baad u mahadsantihiin daawashadiina muuqaalka taageeradiina kal iyo laabkaana waan idinkaga mahad celinayaa hit that button like subscribe de shartuna de waa arimahaaga sidoo kale waxaan kuu sheegayaa daawaday adigoo daawaday muuqaalka haddii xaysiin kuu soo baxdo saaxib ama saaxiibey ama gentleman ama ladies gabar iyo wiilow kaa doontaba ahaabay adigoo muuqaalka daawanaya haddii xaysiin kuu soo baxdo saaxib dee 30 second bis iga dhis inaad xaysiinta daawato wax ka badan laga maro ma fahamti aad baad u mahadsantihiin inta aynu ku kulmayna muuqaalkiisa xiga daawada waxaan idin leeyahay noloshiina u raaxaysta waa idin warami doonaa insha allah